sidee lagu noqdaa top 1% higher value man? nin marka la arko laga heebeyso, ixtiraam iyo qadarin loo muujiyo, fadhiga looga kaco, dumarkan ay ka daba cararaan isaga dumarkan ka daba cararin. nin marka la arko hadalkiisa uu ka turjumaya habdhaqankiisa. waan ku salaamay saaxiib. dhammaanteenba magacanin waa laga wada siman yahay, laakiin darajo iyo qab ayaa lisdheer yahay. nin kasta halka uu isdhigo ayaa lagu qiimeeyaa, waxaana la dhahaa nin kasta waxa qeexa waa habdhaqankiisa. waxa ugu badan aad samayso nin ahaan ayaad helaysaa natiijadooda. haddaba muuqaalkani waxaan kula wadaagayaa 5 habdhaqan haddii aad joogtayso aad ku noqon kartid top 1% higher value man. habdhaqanka koowaad waxa uu yahay nolosha hadaf ka yeelo. qofka marka uu iska nool yahay iyo marka uu hadaf u nool yahay way kala duwan yihiin, xitaa nolol ahaan. qof marka aan hadaf u noolayn waa raqiis. waxaad ku arkaysaa maqaaxiyaha lagu caweeyo, waxaadna ku dhex arkaysaa isagoo la fadhiya asxaab badan. sidoo kale waxaad ku arkaysaa isagoo ka sheekaynaya kubadda, waqtiga inta ugu badan uu ku bixiyo ciyaar iyo dhaadheel. laakiin ninka hadafka leh intaa uu ka duwan yahay, waayo waxa uu u dadaalayaa sida uu ku gaari lahaa hadafka, wuxuuna u marayaa waddo kasta uu ku gaari lahaa. haddaba noloshani ka yeelo hadaf si aad u noqotid qof qiimo sare leh. habdhaqanka labaad waxa uu yahay jooji shukaansiga badan. hal qof u door noloshaada, qofkaasna la qaado waqtigaaga. saaxiib, haddii damac badan tahay ma noqonaysid qof qiimo badan. haddii gabar kasta aad aragto in afkaad la gasho aad rabtid, waxay ka turjumaysaa sida qiimahaaga uu u liito, sidaad u hoosayso, damcaagana aadan u kontarooli karin. shukaansiga badan in waqtiga qarash uu kaa gala mooye wax kale faa'iido ma lahan. waan is ognahay haddii dhalinyaro aan nahay, waxa keliyaan u shukaansano waa in gabadhaasi aan ka helnaa waxa aan ka rabno, kadibna aan ka soconnaa. laakiin waxaad ku dambayn doontaa waddo aanan fiicnayn, mustaqbalkaagana uma wanaagsanaa. dooro hal gabar oo karti badan, ku fahmaysaa, marmarka qaar haddii niyad-jab iyo quus aad dareento ku dhiirigelinaysaa, kugu riixaysa in hadafkaaga aad ka dhabayso, kuu diidan in waqtigaaga aad ku dhimayso waxaana macno kuu lahayn, kuleh anaa ku garab istaagan horay u soco. gabadhaasi ay kuu noqoto sababtaad u rabtid inaad u guulaysato. waa laga yaabaa in marmarka qaar aad isdhiibto, laakiin xasuuso in qof garabkaaga uu taagan yahay, uuna sugayo guushaada. habdhaqanka saddexaad ee ku noqon kartid top 1% higher value man waxa waaye bixi biilka haddii aad gabadha wada socotaan, night dating aad wada aadaysaan. saaxiib, ma ahan daanyeernimo in gabadha aad jeceshahay mustaqbalkan aad ka rabtid in biilka aad ku wada cashaysan aad ka bixiso, laakiin waa ragnimo, waana mas-uuliyad iyo calaamad ay leeyihiin ragga sare ee qiimaha leh. habeenka aad balansantihiin ka soo qaad gurigeeda, aada halka aad rabtaan inaad ku soo wada caawaysaan, ilaali oo gacanta qabo. u muuji in mas-uuliyaddeeda adiga ku saaran tahay. u adeeg inta ay maqaaxida joogto, ugu gac kabalyeeriga, una dalab waxa ay rabto. wada sheekaysta, waqti fiicanna wada qaata, waxaadna ku raaxaysataan waqtiga aad haysataan, una muuji in garabkeeda aad tahay. markaad dhammaysataana ku celi gurigeeda. ha dareento in nafteeda ay kugu aamini karto, mas-uuliyadna aad qaadi kartid. ragnimada la sheegana waa taa qiimaha sare leh. habdhaqanka afaraad, labiskaaga waa qayb adiga kaa mid ah. inaad ciyaal xaafad tahay iyo in nin qiimo leh waxaa lagu kala gartaa dharkaad xiran tahay. badankeeda ma oga in isha hore waxaa nagula qiimeeya ay tahay dharkaan xirannahay. ka waran adoo nin weyn haddii aad xiran tahay jeynis kugu dheggan, jilbahana ka jeexan. sidee qof kugu muujin karaa ixtiraam iyo qadarin, waayo dharka aad xirato waxay ka turjumaysaa inaad tahay ciyaal xaafad, weli maadan weynaanin. saaxiib, jooji xirashada dharka nooca ah. waxaadna xirataa dharku soo saaraya, kaa dhigaya qof mas-uul leh, ku qasbaya qof kasta oo ku arko inuu ku ixtiraamo. waxaad kala saartaa dharka labiska kuwa ee suuqa aad ku aadid iyo xaafadda midkaad ku joogtid. xaafadda waxaa lagu joobaa dhar iska caadi oo sportis ah, laakiin suuqa waxaa lagu aadaa dhar qurxoon oo ku soo saaraya, qof mas-uulana kaa dhigaya. laakiin ka waran haddii dhar sportsi ku aado bannaanka, yaa ku ixtiraamaya. qof kastaba waxaa lagu qiimeeyaa waxa uu xiran yahay. labiskaaga waxa uu diraan fariin qofka aad tahay, marka waa inaad u labisataa sida in labiskaaga uu matalayo qofka aad tahay, ka hor intaadan hadlin. habdhaqanka shanaad ee aan rabo inaad yeelato waxa waaye ku dadaal sidaa lacag ku samayn lahayd. saaxiib, lacagta waa waxa ugu muhiimsan nolosha ee aadamaha kala saaraa. kuwa lacagta leh waxaa loogu wacaa taajir, halka kuwa aan lacagta lahayn loogu waco faqiir. kuwa lacagta leh meel kasta ay tagaan waa la qadariyaa, la soo dhoweeyaa, xitaa waxbaa loogu daraa. waana tii maamada Soomaaliyeed ahayd, qof wax haysta wax loogu daraa.
halka qofka faqiirka ay la qadarin la soo dhaweynin wax lagu darsanin ma jirto cid qiimeynaysa haddii uu joogo iyo haddii uu maqan yahay waayo waa faqiir lacag aan haysan noloshu way ku kala duwan yihiin qofka faqiirka iyo qofka taajirka waxa uu ku nool yahay nolol macno leh oo sareysa halka qofka faqiirka ay la daalaa nolosha qofka taajirka waxa uu u safraa halka uu doonayo waxa uu bixiyaa sadaqo waxa uu dhisi karaa masjid waxa uu aadi karaa xajka sanad waliba waxa uu shaqaysan karaa ajir fara badan laakiin qofka faqiirka ma haysto wax uu sadaqayso masjid ma dhisi karo ceel ma qodi karo xitaa xagga Ilaahay waa ku kala duwan tihiin waxaad barataa sida aad lacag ku samayn lahayd lacag inaad samayso maanta kaliya waxa ka xiga inaad barato xirfado aad loogu baahan yahay qiimo sarena jooga lacag fara badan lagu bixiyo xirfadahaasna waxaan kaga hadlay muuqaal aan soo geliyay kanaalkayaga waadna daawan kartaa fadlan ku dadaal sida aad xirfadaha u baran lahayd kadibna lacag badan aad u samayn lahayd lacagtu waxa ay sare u qaadaa qiimahaaga waxayna ka dhigtaa qof awood badan fadlan haddii intani aad soo gaartay muuqaalka la gare si dad badan u gaaro una caawiyo waadna mahadsantahay